Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Higgs Technology. Anigana waxaan ahay Maxamed Xirsi. Maanta hadduu alle idmo waxaan qaadan doonaa hordhac ku saabsan sida loo isticmaalo Adobe InDesign. Sida wada ognahay Adobe InDesign wax badan kama bedelna sida Adobe Illustrator ama Adobe Photoshop. Laakiin maxaa lagu sameeyaa softwarekan? Muxuuse qabtaa? Muxuuse kaga bedelan yahay Photoshop amase muxuuse kaga bedelan yahay Adobe Illustrator? Adobe InDesign shaqada badan oo ugu badan ee lagu qabto waxaa weeyaan book design, magazine design, sidoo kale wuxuu qabtaa booklet design, leafletyada oo kale waa lagu design kareeyaa asaga intaas oo qabtaa. Sidoo kalena dad badan oo designero ah ayaa waxay ku sameeyaan logooyinka. Waana software awood badan u leh, qaas ahaan wuxuu aad loogu isticmaalaa buugaagta iyo magaziinada. Waxaan rajeynayaa inaad ka dheragtay arrinkaas. Sidoo kale softwarekan marka aad fiirisid waxa uu leeyahay menu bar ayuu leeyahay, sidoo kale icon bar ayuu leeyahay. Meeshan sida uu arki jirtay Adobe Illustrator wax badan kama duuna. Wuxuu leeyahay select tool, direct selection, page tool, grab tool kan uu aga duwan yahay oo kale, contact collector kan, text isku mid ay ka yihiin, line-ka, paint tool isku mid ay ku yihiin, pencil tool isku mid ay ka yihiin. Kan oo rectangle framework la dhaho ayay kaga duwan yihiin. Kan waxa inta badan loo isticmaalaa in lagu soo geliyo sawirada oo xayndaab loogu sameeyo framework. Meeshii aad ka isticmaali jirtay Photoshop waxa la dhaho clip mask, asaga kan ayaa laga isticmaalaa. Inta kale badankood isku mid ayay ka yihiin, wax badan kala ma duuno. Sidoo kalena waxaa jirto in asaga saa ku sheego buugaagta waa lagu qori karaa, sidoo kalena magaziinada waa lagu qori karaa. Taas micnaheedu waxaa waaye in page badan, boqolaal page oo badan hal mar aad furan kartid oo aad qoran kartid. Taas micnaheedu waaye haddaad page u baahatid inaad kusoo dartid waa kusoo dari kartaa. For example, paint tool kan oo kale soo qaad. Paint tool kan isku si ayuu u shaqeeyaa paint tooladii kale oo kale. Waa ujeedaan wax badan kama duuna paint tooladii hore iyo kan. Wax badan kama duuna paint tooladii hore iyo kan. Just waxaa kaliya oo meeshan aad aga jeedaan frame-kan aad ujeedaan ee book uu leeyahay, page-kan aad noo furan frame uu leeyahay. Marka wax la daabacayo oo la rabo in la daabaco shay, inta badan frame-kaas ma laga dhex bixiyo, then inta banaanka u baxsan badankoodu way go'aan. Waa la jaraa macnaha markii la daabaco kadib. So marka adiga meesha ku xadidaysa inta badan. Sidoo kale wuxuu leeyahay barnaamijkan waxa la dhaho page number. boqol page hal mar samaystay, hal mar page number ku sameynaya sidii word iyo lamid ah, hal mar uu qaadanaya. Iyadana waa u dhaadhici doonaa, laakiin maanta waxaa waa hordhac. Wuxuu kaloo leeyahay waxa la dhaho opacity waa la yareyn karaa asna. Sidoo kale waxaa kaloo oo asagana caan ku yahay frame-yada geesaha aad ayuu u yahay caan. oo frame-yada wuxuu leeyahay qayb oo mataqaana noocyo kala samaysan kartid. Like hadda kaba soo qaad paint tool kan ayaa isticmaalaya, halkan iyo halkan ayaa u isticmaalay. Paint tool kaas markaa rabo inaa frame-kiisa wax ka bedelo kan ayaa isticmaalaya. Ujeedaan sidoo yeeshay. Hadda rabo inaa kasii bedelo mid kale ayaa isticmaali karaa. Marka geesaha ayuu isticmaalaya. Frame-ka book oo kale waxaa looga bedeli karaa. Inta badan waxa loo isticmaalo geesahan oo kale. Waxyaabo badan oo mataqaana caan ku yahay barnaamijkan oo la isticmaalo waa jiraan. Sidoo kalena waxyaabaha kale isticmaalo oo software-ada kale oo mid yahay waxa kamid ah characters-ki, paragraph-yada iyo isku mid ay ka yihiin. Marka waxaan rabaa inaan software-kan wax badan kala duuna Adobe Illustrator marka laga reebo tool-kan inuu caan ku yahay waxyaabaha lagu sameeyo oo buugaagta iyo wax la midka loogu talagalay.
designada sidoo kale waa lagu sameyn karaa, magazinada waa lagu sameyn karaa. Hadduu alla idmo tutorialkan oo introduction-ka ah intaa ayaa kusoo gabagabayneynaa. Waxaan rabaa inaad u diyaar garoodaan tutorial kale casharada soo socda insha Allah hadduu alla idmo.